وعربا أنت كدبنا ومهد عليو دولة تركيا ورنتي جلسة وقت دير سيدي عيدن كحوقة دالك الصوماليات وديبو سو كبلها لوغونا أساس لها سراكيل حقين ألف لي يدب لي هول كرأة كارتيله أقوان له سحب صميلنا وغا قيب قاطع ديبو ديسكا دالكودا هي دفاع دالكودا runtii waxaan ugu mahad celinayaa aniga ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hawsha ay nala garab taagan yihiin aaminsanahayna inay tahay meeshii ama wadiiqadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii dib loogu asaasi lahaa kuna gaari lahaayeen himiladooda iyo hadafkooda waxaan rabaa aydan sidaas oo kale inaan u mahad celiyo saraakiisha ciidanka Turkiga saraakiil xigeenkiisa alif leeydi iyo dab leeydiisa oo runtii ayagana waqti dheer ku bixiyay gaar ahaan kuwa halkan ku sugan iyo kuwa ku sugan muxuu ahaa ii sheegay Sparta oo haddana muxuu ahaa ii sheegay ururka afraad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuma doosta oo tababar uga socdo kuwaanuna ay ka yimideen labadii urur koobaad iyo labaadna sidaas oo kale ayagana muxuu ahaa ii sheegay runtii soo siiyay tababaro wax kala ayagana runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan rabaa oo kale ayagana runtii oon marnaba la hilmaami karin inaan u mahad celiyo saraakiil xigeenka alif leeyda iyo dab leeyda macallimiinta ah ee ku sugan dugsiga Turkisom ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ayaguna runtii gacan weyn oo marna aan la hilmaami karin ka geesta tababarka ciidanka marwaayna iraada aad iyo aad u mahadsantihiin waa runtii wax ku aal doona qalbigeena qof walba oo Soomaaliyeed xusiisnaa doono marnaba aan la hilmaami doonin taariikhdana ku qormi doono ilaahay dankiis inta kadib waxaan rabaa inaan dhowr kelmo ku dhaho ururka maanta halkan ka qalin jabinaya oo muddo halkan tababar uga soo socday isbaartana ku soo qaatay tababar gaar ah oo quseeyo ciidamada kuma doosta waxaan rabaa inaan idin sheego waxa idin sugaya ummadda Soomaaliyeed waxaad u tihiin mira ay beerteen waxayna sugayaan inay gurtaan goob kasta iyo gobol kasta iyo meel walba uu joogo waxa idinku rijo weyn qof kasta oo Soomaaliya wuxuu rajaynayaa inaad meeshiisa ugu tagtaan wuxuu rajaynayaa gurigiisa inuu ku jiifto nabad ayadoo taas oo sabab uga dhigayo inaad tihiin ilaaliyaashooda waxa idin sugaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo rijaynaya kuwii idinka horeeyay sidii ay ugu soo kordhiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadka iyo shaqooyinka uu qabanayo howlo muhiim wax badanna runtii ay u bedeleen haddana aan ka rijaynayno inay muxuu ahaa ii sheegay bedeli doonaan waxaan markaa inaan idin sheego waxaa la idinkaga baahnaa doonaa mar walba inaad xusiisnaataan waxaad soo marteen iyo sababihi aad u soo marteen aad iyo aad waxaan idinkaga mahad celinaa runtii waqtiga dheer ee tababarka soo qaadateen waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa xusiisnaada tababarkii aad soo qaadateen iyo sababihi aad u soo qaadateen aadan waxaan idinku hambalyeynaa mar labaad inaad maanta soo gaartaan gabagabadii xiritaanka tababarkiina iyo bilowgii waajibaadkiina shaqo iyo howlihii la idinka sugay aad iyo aad ayaad mahadsan dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan idinku salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh